Waa hanasho amni iyo jawi nabadeed oo hagweyfahay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Baydhabo Mahaminkii shanaad iyo martigeliday wafduusu hogaamiyahay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre kaasoo Baydhabo rooga howlo shaqo waana safarkii in ka horreeyay uu maalmo Baydhabo ka qaadada. Saacadu waa lama sahmiynimo socdaalku waa ankuur galowka amniga magaalada Baydhabo. Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Laftagareen iyo dhalinyaro ku shalkoyti tumanka xaafadood magaalada Baydhabo ee ka koobanta Kalacawey maqaayada Suubis oo kumid maqaayado ku yaala magaalada Baydhabo. Dhalantama iyo muujiyana jaceylka iyo qaban madaxdii oo intii la kulmaan mayniyo wada qaadayna daqiiqada laga shal warqaaday. أنا؟ والله هذه ما كيما تعبان madaxda su'aalo iyo weydiiyeen dhalinyarada may kumid tahay may gobadaasa maysan ka shaqeeysan qaar kumid ah dhalinyarada may sheegeen intii oo baahanyiin intii oo helaan shaqo mayniyo tilmaameen intii magaalada Baydhabo ay ka yartay helowga shaqada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhalinyarada sheegay intii dowladdu hogaamiyo muhiimad gooni ah sii hayta dhalinyarada si oo helo lahaayeen shaqo bulshada reer Koonfur Galbeed iyo helaan aqoon-yahanad dalyo iyo dad jooso daacadeenka adeegow. Tilmaamo dhalinyarada iyo sheegeen intii dowladdu hogaamiyo Cabdicasiis Laftagareen iyo sii hayta muhiimad gooni ee dhalinyarada ma iyo tusaale ka dhigana xulowga golaha wasiirada oo dhalinyaro aqoon-yahaneen badan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre sidaas oo kale dhalinyarada sheegay intii ay mustaqbalka dalka fursad ma lan sii doonaan intii ha ka biiraan siyaasadda dalka sa fikir iyo aqoontii oo ka kordhiyaan sidii bulshada Soomaaliyeed ee ku badan 27 sano iyo hamaray dagaalo sokeeyay ku biilahayay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre sidaas oo kale dhalinyarada mayso ka amaanay sida faylayoon ku shaqeeyeen sidii oo hela lahaayeen amni iyo adeegyada aasaasiga ah ee dadka reer Koonfur Galbeed iyo helaan inay socdowka degmooyinka iyo go'doomiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo hogaamiyo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen iyo wada dadaalo la kaanada amniga guud ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa ra'iisul wasaarihii ka horreeyay dalka oo xilaha miiga socdaal u ka mara gudaha magaalada Baydhabo markii la ku reebay Cali Maxamed Geedi. Ra'iisul wasaarihii dowladii ku meeldeerka Hayti oo Baydhabo xarun ku meeldeereen Hayti isla markaasna uu madaxweyne ku hayay Ilaahay naxariis Cabdullaahi Yuusuf Axmed.